maasha allah sidaas quruxda badan ayuu ku soo baxay. anigu waan tagayo waan tallaaba sahday dayaxa tiigsada taariikhda galay taageero wacan hooyadayda taliya duco iigu filan habaar wax la iiga tari waa ruuxtiisa gabateeda uun ku maqan waxba iima taro wuxuu toos u qir ina 10 jeer tar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaaleyga marna asxaabteyda qaaliga ku soo dhawaada YouTube channelka Zakiya Aadam waxa mahad u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala marka xigta waxaan u mahad celinayaa dhamaan asxaabta ku xiran YouTube channelka ay inta daawanaysa waa muuqaal kale oo ku saabsan jiko maanta waxa idin wadaa Ramadan recipe part 1 waxaan ugu soo hormariyay macmacaan isku qaboojin karto uga maarmi karta ice cream marna macmacaan waqti tira badan ka qaadanaya ama waxyaabo badan ay ka suubinaysid booskiisa kuu gali karo ayaan kuu wadaa maxaa la yiraahdaa strawberry sorbet noocyo badan uu leeyahay laakiin hadda anaga maanta waxa ka sameysanaynaa strawberry sorbet waa strawberry la barafeeyay ama baraf noqday oo la adkeeyay aniga waxaan ka soo gaday Hayat Market waan idin soo duubay vlog mar idin soo gelinaya idin kugu sheegay inaan wax idin kaga soo duubi doono strawberry-gaas frozen ka ah so hadda waxaa sameynayaa makiinadaas blenderkaas isticmaalaya adiga haddii makiinadaha oo galaasyada leh haysatid yuusan ka jabin iska ilaali makiinadahan oo kale daahaysid aad ku anfaca haddii makiinadaada galaaska ahna ay adag tahay ama kuwa cabitaanada lagu shiito dareeraha mid adag tahay waa ku shiidan kartaa waayo waxaan baraf la shiidayaa waxaan kale u baahanahay oo aan ku darsan doonaa malab ani waxaa isticmaalayaa 4 qaado oo yar yar ah oo u dhiganto 2 qaado oo waaweyn ama 2 qaado oo mid cuntada lagu cunay waa ka badsan kartaa strawberry-ga dhadhankiisa ninkii yaqaan uu yaqaana waa dhanaan ku jiro sida isbaandeeska ama cambaha qayb yani qaar kamid oo kale sida uu yahay camal waaye cambaha yana dhin isbaandeeska aan dhaho marka waxaan sameynayaa marka hore tartiib u soo shiida hal mar wax shiid ma aha waa barafna waa dareemi kartaano inuu soo hal mar shiid ma uusan ahayn waxa kale oo ka soo darsanaynaa lindanaanta adi ahaan iska dhaafaa ku dhihi lahay haddaad dhanaan zaa'id jecleen waayo asaga dhanaan geedkan laakiin qeybaha kale oo soo beeyga laga sameeyo sida cambaha oo kale banana oo kale waa u baahan tahay inaad ku darsatid ina fahmaysiina u rajeenayaa soo tartiib markaa u shiiday malabkii aan ku darsaday aan ku sii darsada haddana maxaa la yiraahdaa lindanaanta saas uu soo jilcay ay u jeedin saasaana laga rabaa in uu noqdo waxaa la sameeyaa marka 2 qaab ana weelaa hadda ku soo shubtay 2 qaab la sameeyaa inaa fridge ka gashatid oo 1 saac amal aad sugtid ilaa 2 saacadood soo kuugu adkaado oo jalaato rasmi ah kuugu noqdo iyo inaa isla markiiba hore ka adeegatid oo yani cuntid ana hadda waa ii taagnay waa ku qasbanaa inaa isla markiiba maxaa la yiraahdaa aan bixiyo ama aan qaybiyo maantadaas ice cream ka soo qaadanaysa oo lagu bixinayo tartiibtaada hadda ani qaabka marka kood marka dhigaayo qaab ice cream uu leeyahay laakiin uu si dhalaalaa waayo leerka ay isticmaalayo kulka ka baxaya ama kuleelka ka baxaya si jilcinayo intaas inaan isla fahanaa rajeenayaa Ramadan recipe part 1 ama qaybta koowaad waa iga haysaa waxaa yiraahdaa waa isku qaboojinaysaa tartiibtaada waqti badan ma kaaga baahan dab ma galeysid ma iswareerinaysid yaa makiinadaas iyo alaabtan aan kuu sheega malabkaas iyo maxaa la yiraahdaa lindanaantaas iyo mirahaas oo maxaa la yiraahdaa la qaboojiyay cambaha hadda u baahan tahay waa suuqa ka soo gadanaya waa jajarane fridge ka gashanay markuu baraf noqdo sidaan oo kale u adeegsanaysaa laakiin strawberry-ga waa sameysan kartaa laakiin asagoo saan aan soo helay Hayat Market aan ka soo gaday chocolate-kaas oo hal kun shilin la gadaa halka dollar ku lahaa kun shilin la gadaa kaas xas dhahay ilmaha ku marsii maadaama dhanaan uu yahay laakiin kan dhexe kuma aanan darin so waa healthy aad u fudud yahay waa ice cream uga maarmi kartaa lagama sheekeyn karo ayade maxaa igu haysatiin xaqayga hal isiya idin dhihi lahay waa idin soo hagarbaxay waa u jeedin malabka booskiisa waxa isticmaali kartaa biyo iyo sokor la isku karkariyay koob halfkiisa biyo ah iyo bakeeri halfkiisa oo sokor ah lindhanaan yar lagu daray ina ka heshayna rajeenayaa muuqaal lamid ku kulmi doono waa walaashin Zakiya Aadan oo idin la amaana Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.